الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إلهي نسوق كرسي ما أنت حلقتي أفراد أينان إن شاء الله أندومنو مركا دمانتي وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك كتب الله سبحانه وتعالى محدث مناتي وحارب مانتي ناكالو سيدادو أركسين قصد الهندية iyo dhibaatada uu leeyahay haddii uu qofku dhiig ku xirxirmo amba waxa weeyaan dhiigga jirka joogsada dadku haddii ay leeyihiin dhibaatada uu leeyahay qosol hindigu ayaan rabay maanta insha Allah inaan ka hadlo. Marka waxaan ka hadlaynaa waxa halkan yaala aspirin wada arkaysiin aspirinka iyo qosol hindiga la isku cuni karo. Qofku haddii uu cuno dhibaato ayuu keenayaa. Labada shay lama wada isticmaali karo. Qofku amba qosol hindigu isticmaalaya oo gooniya amba dawadan ay dhakhtarku qoray ee aspirinka ay isticmaalaya labada hadii isku isticmaalo qofku waxa weeyaan waa dhacaysa inuu koobo galo amba ku dhibaatoodo. waxaa jira gabdho labada isticmaalo oo ku dhibaatooday. marka insha Allah waxaan rabaa maanta inaad ka faa'iidaysatiin hadii aad cuntid aspirinka aad cuntid iska ilaali inaad qosol hindiga aad isticmaashid dhibaato badan ayuu ku keenayaa. waxaan kale aan rabay inaan u sheego qofka haddii uu uur leeyahay amba xaamilo u yahay qosol hindiga inuu dhawaado maaha oo waxa weeyaan waxa dhici karta ilmuhu ka soo daata ay culimadu tiraada aan kutubtooda akhrisano. marka qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan markuu uurka leeyahay maca inuu uursado maaha markuu uurka leeyahay. marka waa inuu qofku iska ilaaliya qosol hindiga hadduu uur leeyahay iyo haddii uu xaydka markuu leeyahay amba caadada markuu leeyahay inuuna cabin amba inuuna u dhawaan waqtiga caadadana. saddexdaa shay iyo waxa weeyaan faa'iido badan buu leeyahay laakiin dhibaatooyinkiisuna taasi ay weeyaan oo waxaan dhibaatooyinkiisa kale waxa weeyaan in aanu qofka isku badin dhibaato u keenaya. laakiin waxa weeyaan sidan waa inaanu kala dheeraynaa qosol hindiga iyo kiniinkan waa inaan kala dheeraynaa aspirinka waa inaan kala dheeraynaa. qofku waxa weeyaan hadduu qosol hindiga cuno inuuna u dhawaan aspirinka haddii kale qofku sidaan ii sheegay waa ku xanuunsanaya dhibaato u keenaya. marka waa inaad ka dheeraataa haddaad aspirin cunaysid waa inaad qosol hindiga ka dheeraataa. marka insha Allah faa'iidadu leeyahay insha Allah waan ka hadli doonaa maanta. laakiin waxaan insha Allah rajaynayaa in aad dhibaatada uu leeyahay qofka uurka leh iyo qofka markuu xaydka leeyahay amba markuu caadada leeyahay iyo marka uu waxa weeyaan dhiigga gogontuma jirka istaaga kaasi haddii uu leeyahay inuuna u dhawaan kiniinka hadduu cuno inuuna qosol hindiga u dhawaan haddii uu qosol hindiga cunana kiniinka inuuna u dhawaan labadaas waa inuu kala ilaaliyaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.